السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كينا FX Somali Review. كل عام وأنتم بخير. عيد وناكسن، عيد مبارك، هابي عيد إن شاء الله. لما المسلمين Somali انت كلبا دونك كنا عيد مبارك. وchannel كيني FX Somali Review وما أنت عندي بلا بدونه أشر كيني تحنا هاي ريفيوغا يو سوق مالين لها إن شاء الله تعالى aan bilaawno haddii aan ku bilaawno reviewgiini amba intaan ku jirnay maasha allah New Zealand USD aan ka bilaawno kaasuuna siiyey profitkeeni already aan ka qaadanay profitkeeni aan ka qaadanay maasha allah 110 pips in this area waan ka soo raacnay 1.6582 aan ka soo raacnay casharadiina hore xitaa dhowr jeer aan ku sharaxnay oo anagu sugeynay aad baa umahadsantiin qofkii ka faa'iidaystay signalkaas 110 pips inkastoo time ay qaadatay balse maasha allah yesterday or before yesterday inuu dhammaystiraa rajeynaa marka yesterday kulley aad ugama warheynin qiimooyinka badanaa profit baan ku jiray maasha allah dhammaantood wada profit aan ku jiray signaladii oo dhan aan soo bandhigay sidaas darteed marka profitkii dhexda baan keenay already marka waa iskaga tegay badanaa waa kaga mashquulsanaay maalinna soon bay ahayd oo muxuu ahaay maalin laba maalinna ciid bay ahayd so marka waxaan rajeynayaa inaan muxuu ahaay ka faa'iidaysi wacanaan leeyahay qofkii ka faa'iidaystay New Zealand USD signalka kale oo ka banan New Zealand USD waxaa ka mid ah qiimihii haddaad aragto in laga soo celiyey support laga soo celiyey baad arkaysa qiimihii up to here waa u degaandegay insha allah in this area hadduu degaandego ilaa maanta qiimaha wuxuu bilaabay inuu bearish u bilaabo sidaas darteed marka qiimaha inkastoo hadda oo naga soo tegay dollarna maanta waa u jiraa news odageen waa lagu dhegan yahay so hadduu intuu ku laabto mar kale usan jibin qiimahaas oo bearish u bilaabo waxaan rajeynayaa up to here inaan ka qabano ku dhawaad 100 ilaa 90 pips inaan ka qabana rajeynaa insha allahu tacaala odagiina dollarka waa lagu dhegan yahay laba saaxiibadiis baa hadda dacwad iyo lagu soo oogay muxuu ahay musuqmaasuq xagga doorashooyinkii iyo maaliyadeedba ay sameeyeen sidaas darteed marka odayga saaxiib dhow la ah odayga laftirkiisa waxaa suurtagal baa la sheegayaa in dacwad lagu soo oogay isaga laftirkiisa sidaas darteed marka dollarka ma fadhiyo ruushka xitaa hub uu rabo inuu ka iibiyo wadamadan turkiga iyo carabta qaarkood wuxuu ka fikirayaa oo balaan gareynayaa inuu lacagtiisa ruushka uga gato sababtoo ah lacagta maraykanka dollarka waxay sheegeen inaan laisku haleyn karin oo hadda lacag fadhisa aysan ahayn maadaama haddii wadan dagaal badan uu kula jiro wadamooyin kale waxaa suurtagal ah adiga isku haleynayso wadankaas lacagtiisa haddii dhulka la dhigo khasaare weyn baa ku jirta adig sidaas darteed marka way planning bay sameynayaan sidaas marka odayga wax badan baa saameyn u keeni karo maasha allah 110 pips maasha allah waxaa kaloo ka mid ah aan ku jirnay euro australian maasha allah in this area look casharkeeni horena waa ku sharaxnay aan sugeynay inuu dhaafo laakiin profitkeeni koowaad waa kana qofkii xitaa bay ka galay maasha allah xitaa waa sharaxnay laakiin qofkii xitaa look waa uu imaaday in this support area waa haddana isla within hourska kale ku xigo next hourska kale ku xigay waa u dhaqaaqay welibana waa u jibiyey marka insha allah I think after 3 hours waxaa jiro news oo yuruga kaasoo manufacturingka Germany manufacturing ay kusoo saari doonto look one here resistance so hadduu mar kale triple bottom uu ku noqdo qiimihii waxaa sugaysaa ama newska uu kasoo baxo
qiimaha up to here inuu sii socdo insha Allah. After that qiimihii oo aad sell kaga faa'iidaysato adiga Soomaalida soo hadda waaba la joogaaba laakiin qiimihii inuu qofka sell kaga faa'iidaysan karo up to here insha Allah ta'ala euro Australian isagana waan ka haynaa 100 pips. waxaa kaloo ka mid ah euro Canadian lacagihii aan ku jirnay maasha Allah. look qiimihii sidaa u sameynay in this area waa meeshii laga soo celiyey oo qiimihii aan sugaynay ilaa inuu at least uskada ama loo dhaweeyo balse maysan suurtagelin oo qiimihii uu isku dayay in la soo celiyo oo kasoo dhex hoos dhago balse qiimihii euroda kor bay u kacday labadii maalmood lasoo dhaafay oo dhan euroda kor bay u socotay soo kabasho bay sameynaysay maasha Allah. isaga profit fiican kama helo laakiin entry pointiga baan soo dhaafsiinay ilaa 25-30 pips I think Argentina profit aan ka qabtay maasha Allah maadaama uu dhaqaaqay ilaa 190 95 yes maasha Allah 90 so marka I think waana tiimal hore idiin sheegay oo ahayd haddii qiimaha 80 pips xitaa u dhaqaaqo inaad entry pointiga aad keento hadduu 80 u dhaafo ilaa 100 u tago aad soo sigsato aad 20 pips 15 pips ilaa 30 pips aad qiimi keento waxaa hubaal ah qiimahaas hadduusan xoog usii degaynin oo usan soconin oo hakad uu galo kor usoo yaro kaco ilaa 40-50 haddana la yaro celiyo isla meeshuu kasoo kacay haddana uu isku shuday markale inuu kasoo kaco qiimahaas waxay u badan tahay inuu dhinaca kor soo aado hadduusan mar saddexaad iyo mar afraad lagu celinin oo qiimaha uusan gelin range waxaa jiro sometimes range oo gal waa kana rangegan oo kale yiri qiimi meelo sarena ma tagaa meelo hoosena ma tagaa wax yar oo socdaa waa la soo celiyaa wax yar buu socdaa waa la soo celiyaa wax yar buu socdaa waa la soo celiyaa kadib buu go'aansadaa meeshuu aadi lahaa sidaas darteed marka haddii aad fiiriso waxa u dhexeeya 1.5441 ilaa 1.320 ilaa 100 pips so saacadaha dhaadheer xoogaa kanaladoo kale marka isku fiiriso oo aad isku dhow yihiin laakiin qiimo badan baa ku fadhiya sidaas darteed marka mar walba waxaan kula talnaa maadaama aqoon yar ah leedahay 100 90 80 markaad qiimaha ka qabato inaad ka dawado stop loss ka soo dawado profit ha kugu soo dhufto waxa kaaga daran qiimihii haddii meeshaan aad ku helay without profit baa lagu dhufan lahaa haddii aad stop loss ku helay already look ilaa meesha u tagay qiimihii soo ma jeedid sidaas darteed marka mar walba waxaa fiican aqoonkaaga maadaama uu yar yahay inaad ka dawado profit fiicanna aad kun ku dar aad ka dhigto kun ku dar iyo waxaa yaa faa'iido badan muxuu ahay adigoo maalin walba signal fiican sameynayso haddana sida u socodsiida wax badan u sugaysid lagugu dhufanayo stop loss waxaa kaaga fiican kun ku dar iyo adigoo zero maalintii taagnay kun ku dar 100 aad taagantaa maalinta kale isku mid maahan sidaas darteed marka insha Allah waxay idinkula talnaa mar walba signalka marka aad gashaan email fiican aad gashaan qiimo wax fiican aad ka hesho iska keen entry pointiga keen xitaa haddii aad wax badan aad ka sugayso kadib iska danayso xoolaha ile every time ma dul fadhinaysid hadda qiimaha euroda insha Allah markii European-ka la furo I think in xogaa kor loo yara qaado haddii qiimaha newska intaan filanan ilaa maanta news kale baa u jiro oo European-ka meeting-ka iyo policy-ga ay ku yeelan doonaan statement-iga sidaas marka qiimaha haddii uu soo dhaco up to here baa rajeynaa in qiimaha u imaado oo correction uu sameeyo Soomaalida good luck baa isagana idinkaga rajeynayaa Euro New Zealand already waa ka baxay taas mar hore 10 hore baan ku sharxay pound Australian aan fiiriyo isagana quickly pound Australian masha Allah look qiimihii meesha qofkaas ka soo raacay ama in this area qof walba meesha ka soo raacay waxaad arki kartaa in qiimihii 1.7412 uu imaaday anagana profitka aan ka sugayay 1.7385 kaas oo ah qiyaas ahaan
ay u tahay 30 pips ku dhawaad inuu qiimihii profitkii ku dhiman yahay, laakiin waxaad arki kartaa qiimaha inaad ka hesho mastarada inoo soo qabo qiimaha inaad ka hesho muxuu ahaay in this area 218 pips ilaa 20 pips qof inuu ka hayo. Sidaas darteed marka haddii stop losskaaga uu meeshii kore u yaalo amba oo muxuu ahaay meeshaas ama entry point-igu uu yaalo 213 pips fiiri sida uu uga soo dhex baxay meeshii hadda u dhaafay waa inaad wax ka qabataa 130 pips minimum waa inaad ka qabataa oo aad stop losskaaga aad dhex keento ama 100 pips aad dhex keentaa. After that qiimihi haddaad aragto inaad space fiican aad siiso uu ku sameeyo sixitaan uu ku sameeyo adigana aad faa'iido fiican uga qabsato. Maasha Allah 130 pips baan ka qabanay isagana 1.700 baan keenay waa kana oo u soo dhawaaday balse waa laga celiyay laakiin markii dambe xoog buu ku soo dhaafay. So ma jeed haddii aad fiirisaan in this area waa 1.7482 oo laga celiyay markii uu soo yara kacay kadib meeshii hore uu kasoo kacay buu ku laabtay after that xoog. So psychology markii la yiraahdo waxaa isku aadista bulshada soo baxayo iyo waxa la filan doono iyo high low iyo bottom double top head and shoulder right shoulder iyo left shoulder. So waxaas dhan aad psychology ahaan iyo wax walba isku aadistaa iyo adiga maskaxdaada wixii kasoo baxo. waan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaad fahantiin. waxaa kaloo kamid ah pound switchka isagana intaana ka bixin pound australianka qiimaha waa uu soo degayaa waa uu sii wadan doonaa laakiin hadduu soo degitaan uu sameeyo in this area insha allahu tacaala in this area buy limit insha allah buy limit up to here markan 1.7819 insha allahu tacaala. Tomorrow I think waa rajeynaya inuu imaado hadduusan imaanina qiimaha uu kor usii kaco insha allah balse wait until uu ku tuso in that area uu imaado sell limit insha allah mahadsanidin. pound switch isagana aan ku jirnay qiimihii 1.626 that area maasha allah muusan gaarin meesha aan ka rabnay oo kasoo noqday oo I think u jirto 20 pips u jirto balse aniga waan kaga baxay in this area waan kaga baxay markaan signalka jikimaay intaan soo duubin videoga waan kaga baxay oo aan kaga hayo 50 pips maasha allah 26 ilaa 76 waxaan rajeynayaa inaad idinka kale wax ka qabateen qofkii gadaal ka galayna signalka already maalin hore baan soo bandhigay qofkii ka galay gadaal ka galayna insha allah inuu iska xiro meelahan oo kale qofkii ka galay inuu iskaga xiro si uusan loos u gelin maadaama qiimihii hadda aad u maleyso in uu imaan doono in this area laga kiciyay support area after that inuu qiimihii mar kale haddana kor aado insha allahu tacaala. waan sugaynaa signalkaas. pound switch isagana waa kaya waxaa kaloo kamid ah USD Canadian isagana USD Canadian maasha allah inta baan ka sugaynay profit keeni 73 isagana uu imaaday 90 ilaa 89 uu imaaday. I think waxaa u maleysaa inay ka dhiman tahay xoogaa yar qiimihii xoogaa yar ilaa 15 pips inuu nooga dhimayaa profit keeni oo naga laabtay haddana balse qofkii in this area kasoo galay 1.3160 120 pips buu ka hayaa. sidaas darteed marka save at least 50 pips and 60 pips waa inaad save gareysaa maadaama profit keeni saxda oo aan gaari weynay ay ku beegan tahay haddii aan kaga soo qabto aniga meesha ka galay 60 yeah.
this area kasoo qabo masha Allah 194 ilaa 192 ilaa 190 pips sidaas darteed marka waa inaad save gareysaa 60 pips waa inaad save gareysaa ama 50 pips insha Allah tacaala stop loss kaaga dhex keenta oo qiimaha haddii uu laba kacleeyo in muxuu ahaa qiimahaagii ama faa'iidadii aad kaga qaadato wow I think masha Allah ciido iyo soonkii masha Allah ilaahay ducada waa naga aqbalay kuwa badan waa u dhamaystiray farxadna waa ku ciidna maadaama qiimaha markii aad profit fiican ku jirto dhaxal stop loss aad keento happy baa tahay oo kama fikiraysid xitaa haddii uu stop loss kugu dhufto adiga profit oo ku jirtaa waa akoonkaaga $2 $5 $10 $100 $500 wixii ku dhaca waxbaa ku dhacay sidaas marka waa faraxsanta adiga ilaa wax ma lagugu lahan isagana waa kaya insha Allah harjeen inuu tasxiix yar sameeyo dan uu soo dhaco haddii uu sameeyna inuu ku aadana oday warkiis ma fadhiyo waa profit baan kaga jirnaa insha Allah maanta marka waxyaalaha la rajeynaya waxaa ka mid ah Euroda in news soo baxo laba news walibana kan hore waa wax iska yar German manufacturing-ka xoogaa yar buu dhaqaajin doonaa ilaa 40 50 60 20 30 sidaas darteed marka ka hor inuu dhaqaaqo xitaa waa suurtagal after that newska markuu imaado uu dhaqaaqo laakiin waxaa si fiican xoogaa u dhaqaaqi doona oo waali ah newska 8 saac iyo bar Soomaali xaggeeda markay tahay newska soo bixi doona oo live u soo dhici doona waa newskan ay idin tusiyo insha Allah economic calendar-ka investing-ka ECB publish account of monetary policy waxaad aragtaa bilo baa loo qabtaa sidaas darteed marka waa la soo daaya ma garatay live baa loo soo daaya qiimaha markaas euro waxaad arkaysaa iyada oo muxuu ahaay isdhaqaajinayso sababtoo ah European Central Bank-ka waxay soo deynayaan monetary policy meeting-ka so meeting bay qaban doonaan bankiga European-ka sidaas darteed marka waxay u hadli doonaan waxyaalo badan interest-ga iyo rate-ka ay ka mid tahay waxyaalo badan sidaas darteed marka qofkii geli doona midaan inuu iskaga ilaaliyo yara fiican maadaama kaga hadli doona waxyaalo badan European-ka bankiga sidaas darteed marka interest rate-ka ugu muhiimsan ay kaga hadli doonaan waxyaalaha aadka u badan shirarka interest-ga iyo waxyaalaha badan deymanka sidaas marka waa laga joogsadaa maanta oo kale markaas kale waxaa la gaadaa qiimihii hadduu kursi aado area fiican uu sii tago qiimaha ilaa tomorrow kale inaad wax fiican aad kaga gasho waxaa kaloo fiirin doonaa goldiga isagana doolarkii u dhacayay goldiga xoogaa xoog soo yeelanaya qiimi waa deganaa support area sell limit qofkii meelahaas sugayay hadda ka horna maraan sugayay balse waa kana muusan ii soo gaarin hoos buu ugu soo dhacay balse mar kale insha Allah tacaala in this area sell limit 1201 baa laga celiyay shalay waxaan rajeynayaa qiimaha inuu hoos u dhici doono ama wax yar oo kor u laabto african socdo laakiin in this area buy limit 1181 ilaa 1183 inuu buy limit 1181 inuu qofka buy limit dhigto insha Allah tacaala kor doolarkana maanta sidaa sheegay news bana oo jira odaygana uu lagu kacsan yahay iyo siyaasadiisa waxyaalo badan baa la iskaga hayaa in micnaha digtoonaan fiican la sameeyo iyo meelaha laga gelayo insha Allah aan fiirino pound USD isagana insha Allah pound USD I think inay lugta afraad ixtiraamtay balse meesha uu naga hakaday iyo meesha kaga soo degay kadibna la soo celiyay xoogaa isayra ma lahan maadaama support age uu jibiyay balse haddana ay noqotay fake breakout markaan oo kale fake breakout waa dad badan markaas waxay u maleeyaan maadaama la jibiyay oo xoogaa kor loo soo yar qaadayo sell bay meelahan oo kale ay dhigtaan sell limit sababtoo ah muxuu ahay fake breakout-ka casharo badan baa lagu sharaxayaa sidaas darteed
qofku waa inuu soo marka uu qof walba la leeyahay wait until aad xaqiiqsato sug waxaa lagu leeyahay waxaa kamid ah fig breakout-ka kamid ah fig breakout-ka oo kale haddii aad gasho selka oo kale meelahan oo kale aad dhigato markaas aad soo jebiye alla markaan oo kale sel gal hawaan kusoo socda haddana sel limit kale u celi waxa waaye I think in khasaaro weyn aad kala kulmi doonto insha allah oo aad aragto ilaa up to here sidaas darteed marka qiimihi haddaad fiiriso meesha hadda laga soo celiyey waa in this area oo noqotay support area hore become resistance soo ma jeedi support area this is support balse qiimihii wax yar kor loo celiyaa balse supportii hore resistance buu isku bedelay waa kan support area waa dhihi karnaa in this area become resistance soo ma jeedi sidaas darteed marka pound USD maanta doolarka intuu soo baxayo hadduu dhaqaaqiisa hoos u sii wato haddii uu soo laabto oo in this area oo mar kale kusoo laabto ama up to here sorry nuska iyo dhaqaaqay up to here oo qiimaha newska doolarka maraykanka uu soo baxo positive la filanayo positive baa la filanayo hadduu soo baxo qiimaha pound USD insha allah waxaan rajeynaa inaan wax fiican kaga qabano isaga kasto time ay qaadanayso ilaa up to here insha allahu tacaala 100 bits intaas baan kusoo gebagabeynayaa maanta insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin daawashada videogan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ciid wanaagsan baa idin leeyahay maalin wacan trade wacan insha allahu tacaala guul wacan account management-gana waa muhiim inuu qofka oo management u sameeyo akoonkiisa si akoonka oo dhaqaalihiisa kor u kaco dhaqaalaha ma ahan inaad hal maalin aad ku darto 80% ama 60 ma ahan isbuucii haddii aad ku darto 5% iyo account haddaad ku darto waa perfect way waa wax lagu farxo way ama wax lagu faani karo way soomaalida garan 5% per week haddaad ku darto muxuu ahay monthly waxaad haysaa 20% baa haysaa so meel laga hela ma lahan muxuu ahay assetkaaga oo 20% aad ku darto iyo account tusaale $1,000 oo kale haddaad haysato 20% aad ku darto 200 haddaad haysato 20% aad ku darto so waxyaalo badan baa isbedelaya soomaalida garan akoonkana nin walba siduu akoonkiisa wax ugu bilaabo waaye trade-ka signalka iyo chartka qofka hadduu barto review walba loo sameeyo isaga xitaa waxyaalo badan baa uga soo bixi doono insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin daawashada videogan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo sikriye magaca dheer xabaabi mahadsanidin subscribe like share and comment bye bye